dhacdadan ama sheekadan waa mid lagu tilmaami karo musiibo waxayna dhacday mar aan saas u sii fogeen sanadkan dhexdiisa weli bishii 9aad sawirkan hadda arkaysaan waa sawirkii ugu dambeeyay ee la qaaday inta aysan xaaladda isku rogin musiibada aan hadda sheegnay. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لما نصعب شرفت بدن سؤال هذا مركلي كسؤال هذا مقال كلي ولكن صعب كرت اسمه وسوي channel كوسو برو مركلي واحد دليلكم ما سنتين سد مرة بعد والله ساعتين مقال هذا channel كوسو دينا سدا والله قرينا سوا شير قرينا سان قف كويس وبيت channel كان دكتور بيري وحن لين هاي سدوا أدي هذا ما سنتين دمانتين سدا هربع كوشاكنا بعد عذا وحي دعضي يعني لابد يكو إلى وقتن كسنة كندا كوجرنا ولي ببشي سي سجالات بس هو حن إسكال صوب بلعبنا ماشي أي كصوب بلعبته. labada kun iyo 17 taariikhda markay ahayd haweeneydan la yiraahdo Lydia ee u dhalatay dalka Ukraine ayaa waxay ka tagtay Ukraine oo waxay aaday dalka UK waxay degtay markaas tuulo yar oo la yiraahdo Bracknell oo markaas u dhow London markii ay meesha degtay yani waxay kaliya isku koobtay markaas shaqadeeda way ka dhaaratay ama iska daysay waqti walba oo banaanka kaga bixi lahaa ama ka qasaari lahaa waxayna ku soo koobnaatay shaqadeeda inay waqti badan siiso waxay shaqaynaysay 6 maalin oo waqtigeeda kamid ah waxayna u shaqaynaysay hotel oo ay ka ahayd xisaabiye kadibna diiradda ay saartay in waqtigeeda iyo maaragtay lacagteeda aysan meel cidla ku bixinin ka sokow waxa jirtay markaasi maalmaha axada inay tagi jirtay meel oo diin ama waxay aaminsan yihiin oo kala ah markaasi marka meesha markay tagtan waxa isugu imaanayay marka dad kala duwan dadkaas oo maaragtay meesha ayagana sidoo kale sida ayada oo kale u imaan jiray halkaas maalin inay meesha waqti ku qaataan saacadeedii shaaxa iyadoo ku jirto oo meel iska fadhido ayaa waxa uu imaaday marka nin oo magaciisa la yiraahdo Norbert ninkii markuu u imaaday marka sheeko bilowgeeda oo kale marka kabaheedu amaanay wuxuu yiri kaba qurux badan aad xiran tahay markaas ay tiriyay waa maasan tahay okay kadibna yani way sii sheekaysteen adiga saacadii marka waxay ugu baxday yani ayagoo maaragtay aanan dareemin saacadii kadib adiga meeshii ay ku laabteen kadibna hooshii markii ay u dhamaatay waa ay kala tageen markii ay ka soo tagtay marka ninkii waxay bilaabeen labadoodaba qofka kale inuu ka fikiro marka ninkan waa isna magaciisa waxa la Norbert sidaan soo sheegnaba waa 41 jir isna u dhashay wadanka Hungary waxaasna uu imaaday UK ama isla magaaladaas ay degneed ee Bracknell sanadka markuu ahaa 2018 waa hal sano kadib markay ayada timid isagana sidoo kale waxa uu yani farsamo yaqaan yani uu ka ahaa idaacad sidoo kale sawir qaadan uu ahaa sidoo kale isna wuxuu ahaa qof ay ka go'antahay inuu lacag save gareeyo oo uusan waqtigiisa iyo lacagihiisaba meelaha qaar uusan ku bixin marka maadaama labadooda isku mabda ay ahaayeen ayaa waxay keentay markaasi inay labadoodaba midka kale uu yani isbuuca soo socda ama xadda soo socota uu yani sugi waayo inta ay arkaan kadibna markii ay meeshii isku arkeen hadana mar kale ay hadana meeshii shax ku wada cabeen oo maaragtay si fiican ay u sheekaysteen kadibna waxay noqotay inay contacts ama telephone number ay kala qaataan si ay u xiriiraan waxayna ku ballameen mail oo yani meesha iska duwan oo ka baxsan inay maaragtay ku sheekaystaan yani waxay noqotay marka inuu xiriirkooda meesha ka bilowdo marka 2 sano kadib xaaladii waxay ka dhigtay inay aad isugu soo dhawaadaan waliba ay isguursadaan markii ay isguursadeenna oo isku guursadeen magaaladii yareed يعني نصيب دارو دنك gabadha la yiraahdo Lydia dhankeeda qofba kama joogin meeshaasi oo waxay noqotay markaasi adiga yani inay tabto oo istiraahdo way ficnaan lahayd adigana de farxadaadan arooska inay kula qaybsadaan yani dadkiina ama familkiina oo kale taasa ka dhigtay marka inay qorsheeyaan inay Ukraine soo wada aadaan si ay yani bishooda malabka ay ugu soo qaataan kadibna adiga tii yani waxba dib u dhigay oo ay isku aadi weyday maadaama labadii sano ugu dambeysay yani xaalado oo dhanka yani maaliyad iyo waxyaabahaasi oo u sabaha COVID-19 ay jireen adiga ugu dambeyn sanadkani 2021 bishii September ayay waxba isugu hagaageen oo waxay go'aansadeen markaasi inay tagaan dalka Ukraine kadibna markii ay soo baxeen oo diyaaradda ay ku soo dhaceen marka Lydia safarkaasi inta ay familkeeda la soo kulmi doonto iyo waxyaabahaasi xitaa ka sokow waxa markaasi jiro wiil ayada ka yar oo 29 jir ah oo ay aad u jeceshahay magaciisana la yiraahdo Miroslav marka Miroslav asna waxa uu ku sugan yahay markaasi Ukraine waxa marka Lydia ay rabtaa in yani walaalkeeda kaliya markaasi la dhashay iyo sidoo kale ninkeeda inay isbartaan walibana ay sheekaystaan maadaama laba meel marka ay ku kala nool yihiin marka waxay istiri hadii xagga la tago yani walaalkaaga iyo maaragtay odaygana si fiican isku baran doonaa yani waqti fiican kulay xagga aad ku soo wada qaadanaysaa okay marka wiilkii walaalkeedana markii ay u sheegtay asna arintii aad u soo dhaweeyay waxa uu yiri xitaa yani xilliga yar ee aad joogtaan waxa xitaa qorsheyn doona inaan inteena iyo waliba group kale xitaa
aan banaanka ama meel wada aadno oo aan activity waxaan soo qabano kulay xusuus noo noqon karo oo waxa la tagay markii kasoo degay marka Ukraine waxa la tagay yani adiga Lydia iyo xaafadooda adiga maalmihii ugu horeysay ilaa iyo isbuucii ugu horeeyay waxay ahayd markaasi adiga mar walba inay dad booqadayaal ay imaanayeen adiga in oo maaragtay waqti badan oo fiican oo qurux badan markaasi meesha ay ku wada qaateen ayadii familkeeda marka isbuuc kadib marka booqashadii reerkii wixii ay soo yaraadeen oo ay soo yaraadeen ayaa waxa soo baxay marka activity-ga ama yani maaragtay dalxiiskii walaalkeeda uu qorsheeyay oo marka dhulka buuraha Yurubta bari ee la yiraahdo markaasi Carpathianka in maaragtay meesha ay tagaan meesha ayuu qorsheeyay saddexdooda iyo waliba adiga 9 qof oo kale oo ayagana saaxiibada markaasi ugu wada dhow si ay meesha waqti qurux badan markaasi ugu soo wada qaataan buurahaasi ama dhulkaasi meeshaas uu xulay walaalkeeda yani waa meel aad u qurux badan oo dalxiisyaal badan markaasi ay tagaan kadibna 15 September ayay ahayd sidaan sheegaba maalintii ay meesha ay soo wada aadeen markii oo meesha la soo aaday ayaa waxay noqotay yani gawaarida lagu imaaday waxyaalahaas in gees loo dhigto la parking gareysto adiga tendooyina la dhistay tendooyinkii marka la dhistay adiga yani cabaar meel aan ka fogeen adiga buurtii ayay يعني عبار ميلان كفوجين بورتي أي معرفة مركزية ay tageen oo teendooyin ka dhisteen teendooyin markii laga dhistay marka adiga ilaa ay habeenkii ay ka noqonaysay galabtii meesha shaax iyo wixii ay wateen maaragtay marka ay ku sameysteen oo ku karsadeen oo ku cabeen sheekooyin la isdhaafsaday September oo kale maadaama ay tahay yani dhamaadka summerka oo kale yani qoraxda wali waxa ay dhacdaa adiga wixii ka dambeeyay adiga 8 habeenimo ama 2 saac habeenimo marka 8 barka markii la gaaray oo qoraxdii ay dhacday oo yani carada ay mugdi noqotay ayaa waxay noqotay markaasi meel oo waxa la isugu tagay markaasi adiga meesha aan ka fogeen dhowr talaabo u jirto oo maaragtay dabna lagu shidan karo yani hoosna kaymaha laga arkaa yani waa meel adiga buuraho mar walba markaasi ahaydba in dab lagu shito yani walaalkan markaasi uu reserve gareeyay ama yani uu si plan gareeyay ahayd meeshii ayaa markaa dabka lagu shitay xogaa kadib markaa waxa waqti isku helay Miroslav oo ahaa gabadha walaalkeeda iyo sidoo kale Norbert oo ahaa yani gabadha odaygeeda oo ayada in badan ay isku raadinaysay ama ay rabtay inay maaragtay bartaan oo si fiican ay u sheekaystaan adiga hal saacadood meelahaas oo kale markii la wada sheekaysanayay oo gabadhan maaragtay ayadana dhinacay ka fadhido yani adiga sidoo kale ee rabi lahayd markaasi ay u tahay ayaa Norbert maadaama uu ahaa yani sawir qaade waxa uu yiri hal mar waan kacayaa waxaan tagayaa teendhadeeda si aan kaamiradeeda u soo qaato yani meelahan ayaa waxaan rabaa inaan maaragtay xasuusiyo oo kale aan kala haro maaragtay meelahan inaan sawir ka qaadan rabaa uu yiri kadibna markaa Norbert markii uu baxay oo uu sii socdo ayaa markaa waxa sii fiirinaysay yani xaaskiisa Lydia marka intay sii fiirinaysay meesha ay fiirinayso oo ay Norbert ka arkayso waa yani holac dabadiisa waa meesha isaga socdo uu sii dhamaanaya marka oo yani meel holac oo kale ama dab markii aad fiirinaysidna habeen ay tahay inta ugu badan indhaha waxay qabanayaan iftiinka wixii ka dambeeyo oo mugdiga si fiican uma arkaysid oo hadii meesha suudsan dab jirin ama iftiin jirin aad u arki lahayd markii dib yani muuq ahaantiisa ama socodkiisa uu sii mirqaya markuu Norbert sii mirqay aragtidii Lydia ahaan ayaa hal mar markaasi waxa ay maqashay cod oo foori oo kala second gudeedaba isla waxaan madhigaaga ama si kalaaba yani isla markii waxa ku timaaday in wajiga dhagax looga dhuftay oo kale gaar ahaan sanka yani marka indhihiya isaga dardarsamay waxba aysan ka arkeenin dhagihii way foorinayaan yani way dareentay marka inay xaalada caadi ahayn oo way fahantay kulay waxba dhacay xaalada caadi sidan kuma ahan ayadoo isleeyahay yani isdhiibtayba yani wixii dhacay kulay adiga kugu dhaceen oo adigana yani malaha waa dhimanaysaa isleedahay ayaa markaasi hadana waxay sakama kadib adiga ay maqlaysaa macnaha codkii fooridii ayaa sii gaabanayso waxay maqlaysaa marka in oo sidoo kale dad agteeda hadana ay ku cabaadayaan dhawaaqay maqlaysaa macnaha markaasi hadana yaqiinsatay in yani waxaan ayada ku dhacay kaliya ayada aysan ku dhicin oo sidoo kale dadkan ay ku dhaceen okay aragtideedu wali way maqan tahay waxba ma arki karto wixii dhan way isaga dadarsan yihiin laakiin dhagihiya marba xoogaa yar foorida markii dambeysay ka soo yaraanaysa ka soo yaraashii ayay waxay maqlaysaa marka ninkeedii Norbert oo u yeerayo magaceedu ku dhawaaqayo adiga si isdaba joog ah markaas ay hal mar ay u qaylisay isagana markaa uu yimaaday meel uu ka jiro ma garan karto markii aragtay markaa inuu haayo oo yani sidee tahay dhahay markaas wixii tiri markaa yani maxaa dhacay maxaa meesha ka socdo markaas uu isna wuxuu yiri yani wax xuna dhacay wax aad u xuna dhacay maxay tahay hadaba wax dhacay markaa waxa dhacay ayaa waxay tahay waxa la yiri meeshaasi ayaa waxa ku aasneed markaasi miino ama bambo
xilliga la aasay waa 1916 agagaarkeeda. Waa waagii dagaalkii koowaad ee adduunka xilliguu socday. Meena meeshaasi lagu aasay dagaalada xilligaasi socday darteeda oo la isugu aasay ayaa markaasi waxaa jirtay la yiri in meeshaasi mar walba ay ahayd dabshid meel oo dadka markaa dalxiisayaasha yimaadaan ay dab ku shitaan. marka يعني mar walba dab la shidana يعني waxa markaasi uu gaarayay ama u sii soconayay dhanka meenadaasi ama bambadaas 100 sano kadib ayuu dadkani waxa uu ku hagaajiyay habeenkaasi September 15keeda in ma aragtay markaasi meeshaasi ay gaarto in markaa dababkii meesha laga shidi jiray uu gaaro meeshii ugu dambeysay يعني adiga kii يعني meenada meesha ka furi lahaa يعني waxa Lydia ay maqlaysay foorida ahaana يعني waa meenadii afkeedii oo isfurayso يعني si uu qarax markaasi usoo bilowdo waa Lydia wajiga waxa uga dhacayna waxa uu ahaa geedkan asna markaasi ay ku sheegeen kulay wax un ama bir ama wax markaasi ka agdhowaa waxyaabahaasi qarxad kadibna Norbert oo ahaa ninka Lydia oo ahaa isaga dadka yani ka badbaaday maadaama uu meesha ka kacay ayaa caawin weydiistay markaasi gargaar uu wacay gargaarkii marka la wacayna waxa markaa ay soo socdeen adiga ilaa iyo 90 daqiiqo meelahaas intay meesha imaanayeen sababtoo ah meesha ma aha meel dhow kadibna waxa markaasi adiga dhaawacii u sii dhintay walaalkii Lydia iyo laba qofood oo kale marka hadda sheekadan dhanka iyo qaabkan kaga sheekeynayay waa dhanka ay Lydia markaasi ay ka qortay sawirkan hadda aad arkaysaan ayaana wuxuu ahaa sawirkii ugu dambeeyay oo mid kamid ah ayaga telefonkiisa uu ku qaaday inta aysan musiibadaasi dhicin marka runtii sheekadaas cajiibka ah markii aan aqriyay ayaan rabay marka inaan idin la wadaago dhamaantiin waa maasantiin inta muuqaalkan aad daawateen insha Allah inta muuqaalkan aan kulmi doono waxaan idinkaga tagayaa nabad